haddii aad aaminsanayd in qofka naafada aan waxba qabsan karin taas waa fikrad khaldan oo ay tahay inaad maskaxdaada ka saarto. maxamed haldoor waa wiilka baaskiilka loogu talagalay dadka aan laxaadkooda u dhammayn ku fadhiya. horaantii sanadkii 2008 ayaan u soo wareegay magaalada Hargeysa. markii hore waxaan ahaa wiil laxaadkiisu u dhan yahay isla markaasina lugihiisa meel kasta ku taga. dabayaaqadii 2008 aniga oo dhigta school boardina oo ku yaala bariga magaalada Hargeysa isla markaasina la yiraahdo Ummul Qur'aan boarding school dhigta ayaa habeenada kamida xanuunsaday. macallimiinta ayaan u sheegay inaan xanuunsanayo isla markaasina ay ii diraan ama ii fasaxaan magaalada Hargeysa si aan u raadsado caafimaad. xaqiiqatan macallimiintu way iga diideen dalabkaygii waxaana ay ii sheegeen inaan ladnaan doono isla markaasina aan seexdo sariirtayda iskana nasto. kabacdi waxa dhacday in muddo 3 casho ay gaadhay waqtigaan sii xanuunsanayay isla markaasina uu xanuunkayga ka sii daro isla markaasina aan sii xanuunsado. markay arkeen macallimiintu in xaalkaygu aanu ka soo reynin ayay ii ogolaadeen inaan raaco bas ka taga boardingka isla markaasina taga magaalada Hargeysa si aan reerkaygii ugu sheego inaan xanuunsanayo caafimaadna iyo dhakhtar la geeyo. markii aan magaalada Hargeysa imi dhakhtarkeena la kulmay wuxuu ii sheegay inuu yahay xanuun loo yaqaano xasaasiyad. markaas uu ku sheegay kiniin buu qoray. aduu kiniinkii baan ku xanuunsaday. week baan magaalada sii joogay iyo gurigii. kabacdi waxa dhacday in habeenada kamida aan xanuunsado. subaxii markii aan indhaha kala qaaday ayaan damcay inaan kaco isla markaasina waxaan awoodi waayay inaan far dhaqaajiyo. gacantaydii maaha, lugahaygii maaha. sidoo kale xanuun saayida ayaan meel walba jidhkayga ka dareemay. aduu dhakhtarkii baa la igu celiyay isla maalinkii hore dawooyinka ii soo qoray aan ku xanuunsaday. dhakhtarkii waxa uu sheegay inuu yahay meningitis Soomaalida qaarkeedna ay u taqaan qoorgooye. adigu waarkii dhakhtarkaas baa la dhigay muddo 3 bilood ayaan halkaa ku sii xanuunsanay. waxa dhacday in adeerkay Allah u naxariiste uu ii keeno doctorka caanka ah ee Gaboose. adeer wuxuu sheegay Gaboose in dadka xanuunka noocan ku dhaca ay 3 wuxuu yihiin. mid markaaba waa dhintaa, midna sidan imika uu noqday buu noqdaa, midna wuxuu noqdaa qof aan waxba kala ogeyn oo dhareerku ka daato isla markaasna maskaxduna ay isku daadato. wuxuu sheegay dawada kaliya ee uu ninkani leeyahay waxna naftan uu kaga qaban karo waxa weeye inuu jimicsado oo uu nafta dhibo. adigu subax walba waan jimicsan jiray. handicapta la geyn jiray. mar waxaan damcay inaan soo fadhiisto inaan isrogrogo. adigu alxamdulillah noloshaydii way iska soo reynaysa. markii aan isbitaalka ka soo baxay waxa la keenay walaashay ii keen jirtay canjilada heesa ku duubnaayeen. kabacdi heesaasan ka masixi jiraan oo codkayga tijaabinaya. waxa dhacday inaan codkaygu markii hore iska xumaa waayo Soomaaligayguna degdeg uma akhriin jirin. subaxii baa joornaal la soo iibin jiray. joornaalkaas subaxii markii la keeno ayaa waxa dhacday in aan akhriyo Soomaaligaygu soo fiicnaado. kabacdi canjiladihiina waxaan buu bedelay qaab idaacad oo kala. idaacadda waxaan la baxay magac Radio Galchano. warar bay lahayd, barnaamijyo lahayd, suugaan bay lahayd, warbixino kala duwan oo sida idaacadaha caadiga. adigu waxa dhacday inaan ilaa ku dhawaad 10 canjiladood duubo. qaar kamida familygayga ayaa waxay aan siiyay canjiladihii qayb kamida.
way dhageysteen runaantiina markaa waxay dhageysiiyeen qaar ka mid ah waliyaasha TV ka mid ah Soomaalida kuwii baa yimi warbixin bay iga diyaariyeen warbixin si fiican oo qurux badan loo diyaariyay dad badan baan isku baranay dadkan isku baranay waxa kamid ah dad caawiya dadkan lixaadkooda aan u dhameyn oo dalka dibadooda jooga adigu inay waxbarashadii saxaafadda iga taageeraan ayaa aan ku wada hadalay dan waxay ku dhayn soo raadso iskuul lagu barto saxaafadda adigu iskuulkii ugu horeeyay aan islaawad ku beeli kartaa waxa ii diiday ama iga hor joogsatay halka laga koro iskuulka jaranjartaas oo ahayd waa iskuulku fooq buu ahaa kaana saasaan siga daayay kii labaadna arrin ka duwan ayaan kala kulmay oo macalinka iskuulka dhigayay ayaa wuxuu sheegay inuu si gaar ah iyo meel gooni ah igu dhigi doono aan ardayda waxba la baran doonin taasna wuxuu ku sababeeyay maadaama aan ahay qof lacagtiisa u dhameyn lacag intii ka badan waan ka qaadayaa buuro caadiyan 6 bilood baa la dhigtaa saxaafadda $10 bishii waa la iska qaada wuxuu yiri waxaan ka qaadayaa $70 de si gaarana waxaan kugu dhigayaa la soco waxaan u sheegnay inaan haysan lacagtan uu sheeganaya intaas leeg intan caadiyan dadka laga qaadana ay dad muxsiniin iga bixinayaan adigu wuxuu sheegay inaan iskuulka lahayn sheeko de aan qancin ayuu markaa macalinku noo sheegay in la iska fahansiiyaan damacnay din waxba ka suurta gali waayeen macalinkii waxaan ka tagnay anaga oo aan wax de macquul aan nugulana hadlin halkaana aan anagoo hunga ah aanu ka laabano aniga asxaabtii la socotay markaas guriga waxaan ku laabtay anoon niyad jabsanayn laakiin de aan soo waayay waxaan rabay runaatii ma niyad jabin waana ku kalsoonay inaan maalin uun saxaafadda baran doono maalin uun wariye noqon doono